Hello and welcome to Audal Institute of Networking. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Walaalayaal magacayga waa Saciid Cabdullaahi Qayaad and I'm the course leader. Waxa weeyaan maanta waxaan soo bilaabaynaa haddii Ilaahay yiraahdo 10 taxane ah oo ah CCNA oo ah 200 120 CCNA CCNA saad u ogtihiin 2013 dabayaaqadiisii ayaa la bedelay ama dhamaadkiisii ayaa la bedelay waxaana lagu bedelay CCNA oo CCNA-dii hore ahayd 640 802 kan waxaa laga dhigay CCNA 200 120 saad arkaysaan exam numberku waa 200 120 associated certificate kuna yani certificate ka laga hadlayaa waa CCNA routine and switching imtixaanka ana waxa weeye 90 daqiiqo su'aaluhuna waa 50 ilaa iyo 60 su'aalood luqadda ay ku baxayna waa English in yar hadda aniga macallinkiina wax ka barataan yani taariikhdiisa waxbarasho waxaan ka bilaabay magaranaysa computer technician waxaan noqday system administrator oo Microsoft ah haddana waxaan noqday system engineer haddana waxaan noqday CCNA oo xagga Cisco oo network associate-ka haddana waxaan noqday CCNP oo ah Cisco certified network professional haddana waxaan noqday magaranaysa CCIE contender oo ah CCIE inaan diyaariyo oo maaragtay ahayd laadarkii ama salaankii ugu dambeeyay oo Cisco ah waxaan mar walba jecelahay inaan ardaydeeda u soo gudbiyo magaranaysa marka aad wax barato iyo dadku wax u sheegi kartaa inaan anigu horta marka hore isdhiso idinkuna magaranaysa adiga daba faa'iidaan hadii Ilaahay yiraahdo macallin walbana sida laga rabaa waa sida marka intan waa iska welcome page magaranaysa waad arkaysaan marka intan waa iska welcome page-ka waxa ka hooseeya ma jiraan haddii aan gallo waxa isbedelay iyo waxyaalaha ma aragtay CCNA-dii hore iyo CCNA-dii dambe maxaa isbedelo oo yani la keenay maadaama Cisco ay ku sameysay reform ay ku sameysay bal markaas waxaan tagay magaranaysa forum kan ayaan ka soo copy gareeyay intan sababtoo waxa weeye waqti uma haynin aan dib magaranaysa research kale ugu sii sameeyo marka forward kan ba aad buu mahadsan yahay ninka qoray magaranaysa itghosts.com marka CCNA-da in laba ayaa loo kala qaadaa si aad u jeedaan CCNA waxay ahaan jirtay waxa weeyaan magaranaysa ICND1 iyo ICND2 marka ICND1 oo code-keegu yahay 101 ka tan cusub weeyi waxa lagu soo daray waa added mawjadan waa added wixii lagu soo daray weeyi implementing VLSM yani subnetting-kii oo magaranaysa VLSM-kii oo la qaybinaya ayaa lagu soo daray waa ICND1 ka awal waxay ku jiri jirtay ICND2 ka ayay ku jiraysay taasi waxa kale oo lagu daray scaling network with another path network address translation oo xayaabo meelaha soo socda ku arki doono oo yani mesela iyadana lagu soo daray oo ku jiri jirtay qaybta labaad oo ah ICND2 ga ICND1 really waxa loo consider garaya ama ayba tahayba entry level technician marka uma baahnayn waxyaalo culus in la saaro yani ina qofka albaabka loogu furo aqoonta baa la rabay Cisco kadib qaybta dambe oo CCNA-da ah weeye waxyaalahan oo dhan ay ku jireen marka laakiin iminka xaqana loo soo wareejiyay managing traffic using access list access listigu wuxuu ku jiray ICND2 ga ICND1 ka ayaa imka lagu soo daray saad arkaysaan hoos jooga oo lagu soo kordhiyay implementing VLANs iyo trunks VLANada iyo trunkiyada qaybta dambe ayaa ahayn ICND2 ga imka waxa lagu soo daray ICND1 ka routine between VLANs macnaha waxa laga wadaa routine and stick waxa la oran jiray oo qaybta labaad ku jirayay ama magaranaysa layer 3 device-ka oo magaranaysa switchada oo routine laba VLAN VLAN 1 iyo VLAN 10 tusaale ahaan 10 iyo 20 hadii ayna trunk lahayn ismay arkeenin marka iyadii oo routine loo sameeyay iyadana lagu soo daray oo qaybta dambe ku jiri jirtay oo waliba wax yar kaga jiri jirtay marka hore waxa kale oo jirta implementing single magaranaysa single area OSPF iyadana lagu soo daray sababta marka hore may jiri jirin magaranaysa OSPF laguma aba yaraatay rib kaliya ku jirto wax protocol ah kuma jirin OSPF iyo GRB midna kuma jiri jirin
introducing oo ma garanaysa basic IPv6 IPv6 ayaa lagu soo daray IPv6 absolutely qaybtan yar hore kuma jiri jireen understanding IPv6 understanding kiisa yani kuma jiri jirin waa lagu soo daray marka isla adigu saddexdani waa introducing iyo understanding iyo configuring IPv6 marka hadhow iyaan configure gareyn doonaa arki doontaan waxyaalaha ICND1 laga remove gareeyay marka hore ku jiri jiray waxa weeye security network ma garanaysa understanding the challenges of the shared land oo ma garanaysa bus topology iyo hubkey iyo wixiis ma garanaysa ay jiri jirtay CSMA CD ga iyo waxyaalihii wax badan baa laga remove gareeyay solving network challenges with a switch LAN technology iyadana waa laga remove gareeyay oo ahayd ma garanaysa yani network maaragtay sida oo ma garanaysa يعني switch كاسرة لا solve gareeyo يعني waa jirtaa laakiin qayb ahaan oo magaraysa legacy camal ayaa laga remove gareeyay wireless LAN-ka ma garanaysa way ku yar cuslayd oo waa laga tuuray marka macnaheedu waxa weeye waxyaalo ku yar jiray marka hore oo iyada laftigeed go'aanan ku habooneen ayaa laga yar qaaday using SDM coordinate security-ga iyadana waa laga qaaday configuring serial encapsulation by enable encapsulation-ada iyagana waa laga qaaday oo yani marka yani mesela si frame relay-ga iyo PPP-ga iyo iyadana waa laga qaaday way ku jiray awal maga rib protocol-ka kaliya ayaa marka hore ku jiray imkana waa laga qaaday qaybta labaad iyadana ma garanaysa lagu soo daray wixii marka eg waxaan aragnay intana waa inta qaybtii hore lagu soo daray intana waa inta qaybtii hore laga remove gareeyay halkan hadda kuwan marka qaybta labaad waxba laga remove gareynin oo ICND2 ga laakiin waxa lagu soo daray troubleshooting VLAN connectivity and understanding because intan daba waa la xoojay intii hore ma la soo qaaday understanding and configure ether channel layer 3 oo redundancy protocol redundant protocols waxa la yiraahdaa xagga layer 2 ga waxa redundancy protocol STP ga ama spanning tree protocol ka xagga layer 3 gana waxa ma garanaysa HSRP iyo GLPP iyo VRRP ayaa troubleshoot oo iyaga waxaan oo dhan waan iman doonaa laakiin waa wixii lagu soo kordhiyay qaybta labaad because inta kuwani redundancy waxay ku jiri jireen CCNP da kuma jiri jireen CCNA da because intana waa intii dambe CCNA da adkayd moogtay troubleshooting IPv4 connectivity troubleshooting ayaa ku jira oo IPv4 ka iyo ma garanaysa IPv6 ba EIGRP ba ayaa ku jiri jirtay waa ku jirtay laakiin saa ugu maysi badnayn troubleshooting EIGRP implementing EIGRP multi area OSPF v4 multi areahaas ma jiri jirin hal single area ayaa jiri jirtay imka laakiin multi area ayaa laga dhigan oo area 1 iyo area 2 iyo area 3 ونركي دون هدي لها بكاس واحد بدن بس سي laga soo qaaday nagaranaysa oo maxaa la yiraahdaa laga soo qaaday CCNP da in understanding and configuring OSPF version 3 ayaa jirta iyadana oo ku shaqeysa IPv6 ku kaliya hatay understanding and configuring client for SNMP magaranaysa iyadu waxa weeyaan magaranaysa waa simple network management protocol ayaa la yiraahdaa waa magaranaysa iyo syslog iyo netfollow saddexdaasba waa saddex monitoring waxay monitor gareeyaan traffic ay monitor gareeyaan marka Cisco devices ayaa lagu magaranaysa in wallahi waa culustaay CCNA waa qiimo xoog ah xambaarsan tahay almost qofku iska CCNB ba CCNA la gaaray hadda managing Cisco devices ka oo remote iyo telnet iyo waxaasa iyo access list iyo waxaasa understanding magaranaysa waxna waxa lagu soo kordhiyay la soo qaybta labaad understanding and Cisco licensing yani license waa license oo iOS koogaya routing between VLANs ka waa la dhiganaya magaranaysa security expanded network waa iyadana waa magaranaysa in network si loo secure gareeyo la dhiganaya implementing VLSM isagana waa la dhiganaya scaling a network with another partner waa la dhiganaya marka waxaan sameeynaa maanta waa CCNA waxaan kala soo wadaan garab wadi doona hadii la dhaca casharada CCNA security iyadana hadii la dhaca soo deyn doona oo soo wadi doona intaasna inta hayga ahaato marka hadii aan network basic-giisa wax yar galo waxaan noqonayaa maanta magaranaysa in network base-ku wixii ma eg theory-ga imika ma ka dhigaynaa wixii theory-ga inta ka dambeeya waxaan sameynaynaa hadii Ilaahay yiraahdo magaranaysa waxaan ka dhigaynaa configuration ayaan bilaabaynaa hadii Ilaahay yiraahdo marka si marka kaliya mala subnetting-ka uma waxoogaa theory yar gali doona hadii la yiraahdo configuration-ka ayaan xooga saaray iyo troubleshooting-ka iyo saad wax u fahamtaan hadii Ilaahay yiraahdo internet networking basics weeyaan waxa what is the network oo maxaa tahay
network waxaan dhigay waa when two marka hal ama in ka badan oo device ah sida computer ama switch ama router ama garanaysa ama hub ama whatever ama repeater connected together isku xidhmaan share resource in share gareystaan resource waa maxay waa data ay data ma garanaysaa in ay share gareeyaan ama xogta ay share gareeyaan af Soomaali xog ayaa lagu yiraahdaa maan jeclahay below in instances of it below is an instance of it يعني hoostan ayaa ma garanaysaa tusaale ahaan u jira marka waxaan dhahay device-dan ayaan soo qaaday waad arkaysaan envelope yada waad u jeedaan envelope yadaas ma aragtay macnaheedu waxa weeyaan hal xabo halkan waa router laakiin waxaan waa switch ba oolaya ama hub ayaa oolaya marka waxa weeyaan in waa marka saan la isku wada xiran yahay oo wixii la soo diro mid walba ayba uu helayo moogtay halkan waa router laakiin waa inuu switch buu noqonayaa ama hub ama switch labada mid waa marka data mid walba intiisa uu helayo ma garatay marka waxa weeyaan they are all sharing iminka hadii meelahan multicast oo kale server oo joogi lahaa oo router kan intana multicast lagu wada configure gareyn la tusaale amigo 10 in ka badan idinka yaani أنا ولي قارين أو multicast يلا ده لكن سؤال waxay tahay mid walba copy oo data share ka weheli lahaan marka habka kalena wasaaso markuu habalka yaalo ama switch oo flat ah oo lagu configure gareyn waxba yaraatee VLAN isana lagu configure gareyn mid haduu wax soo diro message soo diro arabi soo diro request dhamaan way wada helayaan way wada gaarayaan taas waa taa yaro kala ayaa jirto oo legacy ah oo la yiraahdo collision domain iyo broadcast domain waxa u dhaxeeya ayaan halkan ku yareegaynaa collision domain waxa loo consider garayaa ama la yiraahdo legacy inay tahay sababtoo ah waxa jiri jirtay markii uu hub ku jiray CSMA CD iyaduna jirtay oo ahayd carrier sensing multi access collision detection oo u taagan sidan soo socota carrier sensing macnaheedu waxa weeyaan waa processka ama waa nidaamka marka inuu device ku dhageysto intuuna data una transmit gareyn ama frame una transmit gareyn ma garanaysaa data iyo frame ka bucket ka u diraayo ma garanaysaa layer 2 ga la frame layer 3 gana bucket inkastoo ma garanaysaa instructor Kevin Wallace la yiraahdo oo maalin dhaweyd lahaa bucket ku Cisco bucket baba ma garanaysaa iyo frame waa iska kamid oo layer 2 xitaa bucket waa loo isticmaali karaa inta waa tip multi access kuna waxay refer garaysaa ethernet because hadaad ever adaragtaa internet way ku dhex jirtaa multi access macnaheedu waxa weeyaan waa ethernet baa laga hadlaya ethernet maxaa ka fircamay de gigabit ethernet baa ka fircamay oo ah ma garanaysaa fast ethernet ayay ka timiday waa sida because of ethernet waxa loo consider garaysaa multi access ma garanaysaa maadaama multi access kuna uu yahay ma garanaysaa cable de kaas oo ma garanaysaa haduu switch ku wada xiran yahayna ay data ay ma garanaysaa ay أو multi access أو نقطة because هذه ميكا cable الله استعماله أو لو حرام أجرنا يسا إن switch كا لو حرام يعني مثلا أما هاب لو حرام هنا وحوي يوم وحنقنا يا هابكو إن يعني جدد بدنا يولا يا مركا cable الله تصور كلاي وحنقنا shared media هي نقطة أما سر بس كوك هلا بقى أوكي واحد قالوا يدنا على كوجرتا مجرنا يسا إن مركا وحوي أن أوي because ethernet waxa loo consider gareeyaa ma garanaysaa in is used for hubs and switches ma garanaysaa to multi connections sameeyaan ama hostiyo kala duwan isku xidhmaan and there was waxa jirta bus where every host is connected in the same ma garanaysaa media cable bus kuna saaso kala waha waa kan waa hub way isku wada xidhan yihiin macnaheedu waxa weeyaan waa garanaysaa واساسه يعني يوم مدول بودري كرامركا أو در priority مدام إن الهين. Okay, no one will have the sending the traffic مقارنة in the hub well or bus topology. وفنا priority ما لها host والبوين يشوفه. So the problem for the hub كوا حويا ندوق ما كلا قايبيو لكن وحسكو حرام قايبو. يعني هذا حويا في لانس لو ما كون فكر جرين كرينين مركا واسكان ندوق فلات And okay, therefore said collision is used to occur any two hosts to try anytime two hosts and try to send a piece of data. The collision بامر بس كده because of malaha moogta aqli kala badbaadiye oo habka aqli muu lahayn sida switch ku leeyahay
fiilaanada oo switchka uu leeyahay habku ma lahayn marka mar walba waa la isku dhici jiray data ay dhacaysa markaasay ma garanaysaa CSMA CD-gu ama carrier sensing multi access collision detection ku ay came into place ay ma garanaysaa ay role ay mar halka weeyaan ay role ka ciyaarayso macnaheedu waa muxuu yahay waxay detect gareynaysay haddii uu collision dhaco macnaheedu weeyaan haddii laba hal mar habka marka lagu wada xidhnaa macnaheedu waxa weeyaan mid kasta oo host iyo habka ku xidhani waxa weeye inuu sugo oo line-ka jeegareeyo oo eego yani cable-ka inuu ma garanaysaa in أو مقارنة أو أو transmission سمية أما يعني مثلا إن هوستي أما نود أما work station محل حل على كمبيوتر هذا إنه قف واحد ديتا دري هذي هو دري أما اسوي يعني مثلا أو قف بانك ما لها على كمبيوتر ديتا دري هذي هو دري إن ومقارنة إن وحى وينو دفاس كسوجا أما وينو كمبيوتر كسوجا أنت أو كاس ماشي لو قلت لك لا يجاريش وهذا كاس دري كنا مر دري مر أو يحل مر أو كنا دري kaasina hadduu diray data oo kana iska diro waa marka CSMA CD uu imaanayso collision detection ku ma garanaysaa therefore saa darteedna waxay noqonaysaa caqabad because waxa weeye every host oo diri lahaa data waa inuu waxay noqonaysaa oo dirin data oo ma garanaysaa in number ama ma garanaysaa amount of time in la sugo ama waqti muddo cayiman in la sugo kadib oo threshold la yiraahdo threshold-ka markuu dhamaado iyo kadibna mid kale ayuu marka kii loogu diraya that's a collision what they call collision domain broadcast domain waxa la yiraahdaa sidan oo kale iyada laftiga habka umbay ka timiday umbay agtahay marka habku sidiisaba hadii fariin la diro dhamaan dhulka dhan buu gaarsiinaya example-ka oo collision domain ku waa kan ma garatay ama waaba kan badaysa topology this is the collision domain collision data ma aragta waa kana diray waa intaan broadcast-iga u gelin collision-ka waan ku dhex jirnay kana diray data kan markuu diray kana waa diray marka halka habkii isku dhac baa ka yimid fadiga arkay collision data collision taas waxa la yiraahdaa one collision domain ku waa kan broadcast domain kuna waa kan ka hooseeyo waxa weeye habku hadduu kana fariin diray imika maxaan ku garanayaa inuu fariin diray because waxa weeye inta kale oo dhan broadcast ayaa ka baxday boortiyada habka only kii laga helay ee diray baana ma garanaysaa in broadcast laguma soo celiyo isaga because isaga ayaa raadinay marka waa kaas topology waa asaas maarata fariin buu helay waxa laga yaabaa in saddexdan afartan mid ay ku socoto fariintu ma garanaysaa oo ninkan damcayo inuu la xiriiro you know it just go into contact one of these guys so no one knows so it has to arb all the time is waxyaalaha oo ma garanaysaa legacy hubka oo dhibaatada ku lahaa waxa way mar walba uu arbi gareynaya moogtay mar kastaba markuu arbi gareeyo arbigi muxuu create gareynayaa broadcast buu create gareynaya broadcast markuu create gareeyo waa maxay waa message meel walba ay ka baxaysaa marka laga reebo kii broadcast-iga soo diray good so the problem kii waan soo dhaafnay broadcast domain baan joognaa broadcast domain ku isagu waxa weeye dhinaca kale waa major issue iyada laftigeedu collision domain ku iyo broadcast ma garanaysa collision domain ku waxay ka dhacdaa kaliya habka laakiin broadcast domain ku switch-adana way affect garaysaa laakiin switch ku collision domain waa leeyahay laakiin waa maxay every port oo switch ka mid ah switch-ka port kasto kamid wuxuu leeyahay collision domain macnihiisu waxa weeye isa full duplex ku shaqeeya ma halka habku half duplex ka shaqeeya macnihiisu waxa weeye at the same time buu data diri karaa at the same time buu data dana heli karaa that's what they call duplex a half of full duplex macnaheedu waxa weeye marka isaga port ahaan buu collision domain u leeyahay macnaheedu waxa weeye data-du iskuma dhacda isaga waa afarta sideeda wire afarna ma garanaysaa data maraysa afarna data ku qaabilaya marka waa isweydaar marka full duplex baa la dhahay laakiin habku full duplex mooy half duplex waa maxay hadduu hostigani data diro waa in ilan data by directional ma aha moogtay habkan markuu kani data diro waa inuu markuu habka u tago aw ma garanaysaa device-kani aw sugaa intay magaranaysa kuwa kale aamusaya intay kuwa kale yaani waxba dirin ilaa intay kan u soo laabanayso marka waa half waa hal mar buu diraya hal marna way soo galaysaa hal mar buu diraya hal marna waa soo galay hal mar buu diraya hal marna waa soo galay laakiin switch-ku muxuu kaga duwan yahay habka waana dire at the same time waana soo galay waana dire wuu soo galay waana dire data-dii waana soo galay wuu soo galay I mean like way iska rab socdaan badeen
وإج وديتري لا درساسة وسعتها ديتري سوسة أو تنساسة وسعتها واسكرب سعدان واسكرب سعدان مركا سويتش وحيالا سو عقل كلية يلا يد هذا يعني ومقراس وحيالا لقوا عسرية ويان مركا أوكي applies to habits but the broadcast domain affected switches as well واصح basically is two man record maxay markaa tahay broadcast domain waxa weeyaan waa hostiyadan oo hal mar wada diray ma garanaysaa in broadcast domain ama broadcast domain diray ama codsi diray oo ma garanaysaa laba xabo ama saddex kale oo halka in for example kan iyo kan hadii codsi wada diraan de broadcasting meel walba ka baxaya labadii device soo dirta maahe marka muxuu keenayaa maxay markaa keenayaan collision domain ku isagu waa network performance igu hoos u dhigaya in bandwidth consuming uu yahay laakiin broadcast purely waa bandwidth consuming congestion way keentaa ama network oo cedheedhe ama garanaysa yani aan cedheedh garooba may garatay marka okay waxa weeyaan magarasa solution ku laakiin broadcast iyo collision ku waa maxay waa network oo hab lagu xidho oo kadibna VLAN loo sameeyo si aan broadcast domain ku aan isku arki ma sha Allah okay kaas waa ka okay balinta aan ku joojo inta aan ku joojiyo aad iyo aad ba mahadsantihiin wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh